برنامج كان oo caawa codkiisa aan idinku maqashin doonana waxa laga qabtay bishii January 29 1981 waxaana ka qabtay nin dhalinyaro oo saxafi oo la yiraahdo Cabdirashiid Saad hadaba dhageystayaal aan idin maqashiyo Allah u naxariisto Maxamed Mooga Liibaan oo ka sheekeynaya fanka Soomaalida waxa uu yiri wuxuu ku dhisan yahay dhaqanka مثلا والله laba miiran waxa weeyaan ciyaar miiran مثلا hadda ka soo qaato helloy waa laba eri waa laba way lamaanyiin haddaad marxabaha eegto waa laba baloleeya wiilkow below yeele waa laba miiran weeyaan gidigeedba haddii مثلا fankaan dib ugu noqdo waan eego dhaantada مثلا waxaad garan kartaa in heesa Ahmed Maxamed Good uu sameeyay shimbir ninka la yiraahdo qiimo gaaran aan ugu hayo ninka مثلا جمال واني وجناد لي نجناد لي علي لدلي وعمر لدلي ما قالي والله ما إن علي لدلي أصل كبا وجداني بوكو وما هو صديقي دارك مثل هاتين دي بقولونا كبدا مركعي دمك سومالي كماني كبدا كبدا كالندراني عزام كيسوسي بقيت كودت لذا قرايي قالوا المريولاني جبدك بجلي كالين درني عزام كيسوسي waxay dhigaysaa hadaba Cabdirashiid Saad oo 1981 Ethiopia ku wareysay Maxamed Mooga Allah u naxariiste waxyaabaha kale oo ka warsaday waxa kamid ahaa isaga oo weydiiyay sida fanka uu ku soo galay fanka oo aad Maxamed loogu jeclaa Maxamed Mooga Allah u naxariiste waxa uu yiri waxa jirta waa hibi ilaahay uu ku siin karo waxaad bilaabi kartaa ma waxaad u dhalan karto waxa ay tahay bilowga xitaa maantii uu horeeyay يوسف إسماعيل خلفني اللي داو معلنا يا هكوني سلال بقولي أفري كنك إن أنا بقول إلى من تريج كتير ويجي نكا قارا محفوظة وحسيني يا أفر تابوك يدور كعقلي يدور كعمل صحابات أنا جيب أبيعوي وحقوقها سايك نارا وضعينك في يدي وضع النزاع التي طلع قد وابتدي فغير ما نور وتمضنعا كالورجوا نبكي غيري وحويا وانا شديد وأنا والسودان كحانا ولبا محامدنا المرة صوبرتي وي أنا elementary school كي مرة كجرو محامدة أيوه ninka soo barbaaray hadaba dhageystayaal Maxamed Mooga Liibaan markii waxbarashadiisa u dhamaatay waxa uu ka mid noqday macallimiintii dalka Soomaaliya heesii ugu horeeyay oo qaadayna waxa ka mid ahaa mid waxbarashada la fahanteeda ku saabsanayd ama ka hadlaysay وحناي واديك دكتير وحناي وانا معلمك وحناي واديك دكتير وحناي وانا معلمك واجيب ايام وبحلقة وراسو وحنصور وريناها وعدنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيسا وحنبار واجب كيسا وحسنينو وعظنينو ورورينينو وعنينو وحسنينو
وعظمينه والوريجينه وعمينه وعدتينه وريجتين ورعبنا عيديده والورينه وهجا كدبا dhegeystayaal maxamed mooge liibaan allaha u naxariistee waxa markii dambe uu noqday nin xagga fanka u go'ay oo aad u jeclaaday waxa uu la walaaloobay kamankiisa oo gaarsiiyey inuu aad ugu hanweynaado oo markaasi uuba heesaba heeskan kamarkaygana baale anigoo dagaan dodiyo olaad iyo dirirka iide anigoo dagaan dodiyo olaad iyo dirirka iide oy dabeecadday taaydan dadkuba u dulqaadan karin dikiyaa naftiyo daadihiyaho maxaan kula dalmaray wahagaag haddii intaa aan ku dhaafo haddaba heesta maxamed mooge liibaan kamankiisa uu tiriyey allaha u naxariistee waraysiga uu siiyey cabdirashiid aadan seed January 1981 waxyaabaha kale uu kaga hadlay waxa kamid ah doorka fanaanka Soomaaliyeed uu ku jiro maxamed mooge liibaan allaha u naxariistee isagoo arrintaas ka hadlayna waxa uu yiri sida aynu ognahay fanka Soomaaliyeed marxalado aad iyo aad u kala duwan iyo soo maray mar uu weyn jiray iyo markii la magaaleeyay marka waxa jirta cabdirashiidow fanaanku haddii uu yahay gabayaa heesaa ama mu'alifba inuu yahay muraayadii shacabka ee waxa ay qabaan dowladda ama dadweynaha intiisa kaleba u tabiya markaa fanaanku waa macalinka dadweynaha fanaanku cabdirashiid riwaayadaha uma dhigo inuu dadka ku bixiyo ee wuxuu u sameeyaa inuu mashkalad ijtimaaci ah ama siyaasi ah oo markaa taagan uu ku daaweeyo marka waxaan ku tilmaami karaa fanaanku inuu yahay dowlad iskii caalamo leh waa macallin daba oo sida uu baruhuba uu tabaashiirta iyo sabuuradda uu ardayga wax ugaga dhago isaguna uga bara masraxa ama uga baahiya idaacadaha iyo rikoodhada markaa sida runtii ah waa qof aan wax la gashan karin oo isagu wax abuura waxna kordhiya weliba sii kobciya waxaa jirtay 60kii ama lixdameeyihiiba ama xorriyadda dabadeed in fanaaniintu ay riwaayada dhigi jireen ama gebi jireen ama heesi jireen iyada oo wax jansuuro la yidhaa iyo agajugleyn iyo inuu dhigi jiray riwaayado aad iyo aad caan u ah waxaad ka soo qaadaa masalan riwaayadii ubax lamoodiyo oo kale oo aad heesaheedii adiguba ka xusuusan tahay masalan xusuustaan bay inay siyaasadi ku jirtay inay tusaalooyin ku jireen dadka dadweynaha mashaakil taagnaa oo mujtamaca markaa haystii la barayay maysa riwaayada nin la odhan jiray saxardiid maxamed oo ka shaqayn jiray hawlaha guud berigaas masalan waxaad ka soo qaataa xamar riwaayadii ahayd ee ah isma wagdigihii bay aslaysa ee cali sugulle uu sameeyey waxaad ka soo qaataa
iyadoo مثلا xorriyada uu funku lahaan jiray iyadoo berito oo kale doorasho ay joogto oo dalkoo dhan laga vootaynayo berito kale idii daayo ama daasna qaado مثلا waxaad ka soo qaadaan riwaayadii ahayd Shabeellaago waxay ahayd riwaayad mujtamaca si dhaba u taabanaysa oo mashaakil ijtimaaci ah oo مثلا ay kamid yihiin furunka oo kale مثلا oo ay kamid yihiin مثلا dabeecadaha xun ay dhalinyaradu ku kacaan oo kale mid daaweynaysa bay waaga ka daba heesaha Maxamed Mogalle baan u qaadi jiray Allahu naxariistay aniga aragtidayda mid kama dhacaynin laakiin Cabdirashiid Seedo waraysanay xilligaasi heesaha uu ka codsaday inuu qaado isagoo jeclaysay waxa kamid ahayd heesan oo laga yaabo dhageystayaal idinka la fahantiino inay xasuus ku keento ama jeclaataan heesaas waxay heestii halku dhageedu ha babaaygi jaamiyo amba jilibyaal Maxamed Mogalle oo xasaya qari hadaba waxa jiray riwaayado fara badan oo wax ka dhigay riwaayadii mid kamid ah hadaan idin soo qabto waxa weeyaan riwaayad aad u caan baxday ee loo oran jiray aqoon iyo afgarad heesaha uu qaaday way badnaayeen laakiin waxaan idin soo qabanay dhageystayaal si aad u xasuusataan Allahu naxariistay Maxamed Mogalle codkiisii maana heesa halku dhageedu yahay Allahayow nin daacada Allahayow nin daalina deeqaada hawsin